وعربينا سيو إذن waxay sheegeen saaxiibada ayagoona sababeeyay inay jiraan dad fara badan oo guursaday isla markaasna ku fashilmay waxbarashada ku fashilmay guurkuna uu sabab u noqday in waxbarashada ku fashilmaan marka qofka aan labadooda isku wadi karin oo aan guurkii iyo waxbarashadii isku wadi karin maxay tahay talada asiin lahayd marka hore waa maasan tahay waa isku wadi karaa laakiin qofkii shaki uu qofkaan isku wadi karin oo awoodin yani shaki qofka kaga jiro macnaha inuu isku wadi karin tala la siinaa sax laakiin waa isku wadi karaa waa wili abaay Firdawsi sheegtay waaye waxay dhahday 10 gabdhood oo waxa jiraan ay dhahday waxbarashada iyo guurka isku wadeen waa runteed waa sax way yihiin gabdhaha isku wadeen sababta ma taqaanin bulshadu waxay u badan tahay dhanka negative-ka inay u fikiraan si positive ay inay u fikiraan ku adag tahay qodobka labaad waxa waaye gabar marka jaamacada ka hirto ayada toobtada soo gaar waxay dhahay in aan ka hira ka baqaa blaabo ka hirtay ma fiirinaysa blaayada kale oo jaamacada ka baxday oo guuleysatay way ku adag tahay inay ku dayato laakiin waxay fiirinay midii ku guul dareysatay qodobkaas qodob waay qodobka labaad oo 99% keenay maxaa waa mataqaanin gabadha marka horeba inaysan aqoon u lahayn habka xulashada qofka nolosha la wadaagayo inaysan aqoon u lahayn habka doorashada ee kaliya markii loo sheekeeyo jacayl loo jilo iska aaminto hadhow markay guriga ay tagto qofkii ay rabto qof ahayn ku hor imaanayo taas marka waxay keeneen gabadha inay dismoral ku noqoto noloshii iska dhaaf waxbarashada xitaa tii guurka xitaa inay qeylqeyl noqoto ama gurigaas uu ku burburo ama wax la dhaho talaaq caatifi inuu gurigaas ku jiro qodobka saddexaad waxa waaye go'aan la'aan buurta marka la fiiriyo qofka qimada joogo iyo kuwa hoos joogaan kee badan dadka hoos jooga badan sax soo arintan waa arin somehow qofka hadii uu xeeladii iyo sidii loo sameyn lahaa uu yaqaano ama dad la kaashto ama dad oo role models ani marka ku biiray waxa fiirsaday xanaan xamdi maamada aasaastay zaciima la dhahaa dad qaanin ayadoo maxay ahayd gabar guursatay ilmo ku wada dhashay heerkaas ay tan gaarto bulshada wax u tareyso habrirtay ilaa 2 master ee ku diyaariso PhD haddana diyaarinayso yani dadkaas la fiirsadaa oo role model yani laga dhigtaa ma ahan ina role model ka dhigitid qof oo nolosha ku guuldareystay qodobka saddexaad maxaa waaye cabsida waa gabadh inay ka cabsato in ku imaadaan dhibaatooyin ha ka cabsan hadaa rabtid inaad guul gaartid lama cabsado waa la galaa indha adeeg qodob kale oo waxaa jiro oo Firdawsi aan ku taageerayo 100% qodobkaas oo guurka naftirkiisa waqti u baahan yahay iska guurso ma ahan gabadha way qaan gaartay ha guursato ma ahan gabadha waxay u baahan tahay inay maskax ahaan u qaan gaarto aqli ahaan u qaan gaarto jir ahaan u qaan gaarto laakiin aniga waxaan aqaanaa jir ahaan gabadha ma u qaan gaartay ha waa la aroos karaa muuqaalkeeda la fiirnaa ma aha waa qalad gabadha marka yani anigu ku talin lahayn gabar iskuul dhigato inay guursato sababtoo waa run hadii hadda daawada si qaldan aadiisi hadhow ay wax ka soo baxaan waa la isweydiinaa sax gabadhaaneeto fikir ahaan waxaa la rabaa maskaxdeeda inay stable tahay go'aankeeda uu saxnaan karo yani gabdhaha marka iskuulka dhiganayaan waa la yaqaanaa maho waqtiyadaas soo waqtigaas uu guurkan u baahan yahay gabadh inay soo qaan gaarto 19 18 wixii ka badan intaas ay ku guursato soo Firdawsi hal sano hadda hore aad u maasan tahay daawada aad qortay dad badan qaadan doona ay la tahay aad baa maasantiin mar kale daawadayaal waxaan ku guda jirnaa dooda ay qabanayso xarunta Guryasamo isla markaasna ay taabagelinayaan Tokyo Watch iyo madbacada Graphic Som oo duubaya TV-ga Muqdisho Cable sidoo kale waxaa loo mahadcelinayaa Yalax Britain xarun dabacaad isla markaasna aad ula shaqeysa ku xarunta Guryasamo Hormuud Telecom iyo Somnet ayagana waan mahadcelinaynaa Arman Hall oo asagana aan kun jeer u mahadcelinayno oo magaranaysa suurta galiyay in hallkan quruxda badan ee ka dhacdo doodan ee ka dhacdo mar kale waan idin mahadcelinayaa mar kale waxaan ku salaameynaa magaca iyo mansabka aad meesha aad joogtaan ku fadhisaan Firdawsi ayaan siinayaa su'aal taa weydiiyay ka gadisan idin ayaan ku weydiinayaa Firdawsi gabadhii ama wiilkii awooda inuu guurkiisa iyo waxbarashadiisa isku wato oo labadiiba aaminsan yahay inuu wadi karo maxaad kula talin lahayd midka horta waxaan leeyahay dadka kartidaas leh aadaan ugu sabcin lahaa aniga waxa ka wadaa
gabadha iyo wiilka haddii ay isku waafaqaan waa weji gooni ah laakiin aniga waxaan rabaa inay gabadha noqoto gabar isku filan wiilku uu noqdo wiil isku filan hooyooyinkiin iyo aabayaashiina ama ku dhiban ilmaha idinka soo dhasheen oo ku barya ha gelin qaladka ah inta adiga dhib lagugu soo koriyey inaa inta naqato ilmahaagii ah hooyada iyo aabaha uu noqoto wiilashana waxaa ku leeyahay gabdhaha sida gabar walba ay u rabto inay hami yeelato oo wiil walba hami u leeyahay yacni hami inaa yeelato inaa mansab qabato inaa lacag yeelato yaysan noqonin please and please marka aabba noqoto aabba run ah noqo waxaa noqotaa nin fiican oo reerkiisa dhaqan kara noqo haddii intaas la helo waxaan rabaa in bulshadeena ay saxmayso wax kasta oo kalena ay saxmayaan waxaan rabaa يعني marka anaga ka hadlayno waxa fiirinayna waxay tahay social ahaan yani mujtamaceena sida ay u noolyihiin waxa anaga ka hadlayno guurka hadii la isku wadi karo waa dad يعني extraordinary oo idil ay kamid tahay yani waxa is helay dad oo aad isku aadana is helay laakiin dadka banaanka jooga gabdho badan oo wax baranin wiilal badan oo wax baranin kuwaas aniga la hadlaaya in case daan wax baranin oo muruqmaal tahay xataa it's okay laakiin daacad u noqon nolosha aad sameynayso beenaha la imaanin gabar ay isku filnow naag iska dhig qatar iska dhig is adkay okay yaana lagugu sirin waxyaabo aan jirin fiiri waxa la yaabaa ani gabar wiilal sheekaysanaysa I'm stressed maxaa waxaas abaayo gabar tahay boqolaal kala ku joogto qatar iska dhig waxaas ha u bixin wax barashada wado waa tahay mid kale niyadjabka hal iska dhaafo aniga guurka kama soo horjeedo hal guursado hadii ay heleysaan dad fiican oo ku guursado hadii ay heleyso isku wada hadii ay isku wadan karto kartidaas aan leedahay laakiin but please waxaa noqotaan dad runka ka run sheega mashaacirtooda ka run sheega beena sheeginaha aada u taageera idil iyo gabdhaha kale xagga fadhiya taas macnaheedu ma inaa mucaaradku aan fikirkayga dhiibtay aada u soo dhaweynaa waliba dadka aadka ugu dayda kamid tahay idil anaa inuu maalmaha kamid inaa sameyn doono kartidaas ay yeelnaa insha Allah taala idil gabadha haday wax barato inkastoo su-aashaasi idil aan dhihin layla iraahde inkastoo idil jecleed inaa Firdawso weydiiyo adiga ku weydiinaya gabadha haday wax barato miyaynan hormarin karin nolosheeda ay iraahdo haday guursato miyaynan hormarin karin nolosheeda ayadoo waajibaadkeedii qoys iyo midkeedii waxbarasho labadiiba gudanaysa maxay tahay dhibka aad hal iyo labo adoo soo koobay sheegi karto oo isleedahay way kala kulmi kartaa dad badan waxay u daliishadaan gabadhu markay wax barato iyo marka ay guurka ku jirto way kala duwan yihiin anigana labadaas waan qabaa gabadhu markay wax barato xitaa koriinada ilmaha qaabka gurigeeda u maamulayso gabadha ku guda jirta guurka iyo waxbarashada way ka fiican tahay markay gabadhu wax barato sidaa daraadeed gabdhaha waxa kula talin lahaa in yani markii oo waxbarashada hala guursado middan yani nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay guursada oo tarba maalinta qiyaamaha idinku faani doonaaye laakiin ani sababta aan yani u taageerayo in la tixgeliyo waxbarashada waxay tahay cunuga soo bixi doona berito uu ka duwan yahay ilmaha kale maadaama aad tahay qof wax baratay cunugaada wuxuu noqon doonaa cunug lagu faano oo dadka dhan ka duwan oo beri noqdo inuu mustaqbalka hogaamiyo waxaan rabaa marka su-aasheedu waxay tahay waxay Firdawso ka dhawaajisay inayna ragga Soomaaliyeed ee maanta jooga ayna intooda badan u diyaarsanayn inay gabdhaha caawiyaan qaar badan oo kamid ah la isku aamini karin oo nin iska guurso ayna ahayn guurku sida uu noqonay marka dhaliilahaasi oo jira waxaad aaminsan tahay gabdhuhu inay guurka ku degdegaan iyo raggu intaba ayadoo dhaliilo badan dhanka wiilasha ay ka jiraan oo maanta aan ognahay inay dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaanba aan la diyaarsanayn taas waxaa keentay haddaan wax yar soo koobo taas waxaa keentay fikradda faaftay ee bulshada ku dhex faaftay ee ahayd dad wax baranaya marka koobaad ba wax ma wadi karaan wiilkii wuxuu qasab ku noqday inuu waxbarashada iskaga tago gabadhiina sidoo kale waxay ku noqotay qasab inay waxbarashada ka taqoto wiilkii wuxuu noqday xamaali si uu reerkiisa u caawiyo gabadhiina sidoo kale hal xabaan rabaa hal xab inaan ku darsado horta adduunka qof bini aadana oo dumarka ka awood badan kana adkaysi badan ma joogo hooyadii 9 bilood ilmaha caloosha ku qaaday ee 2 sano nuujinaysay ee dhabarkeedu ku haysay buug yar oo qaaday ee waxay baratay inay dhibayso oo joojinayso inayna joojinayna cid walba way ogtahay adkaysiga aad leedihiin gabdhahan raba hal mar inaan la hadlo adkaysiga aad leedihiin oo ilaahay idinku abuuray yaa layda cabsi gelinin wax waa baran kartaan guurkiinana waa wadan kartaan midda labaad ee ah wiilasha aniga nin inta aan wiilasha fahmaayo in la gabdhaha ma fahmi karo tusaale nin dhalinyaro ah maanta haddaan maanta dhaho intaan waxbarashada ka dhammaynayo yaanu guursanin haddaan dhaho
guurka ilaahay muxuu u keenay walaacuu ka hortagaa wuxuu ka hortagaa walwalbuu ka hortagaa war dhalinyaro waa isognaha waxaan haysta shukaansi iyo dhafar iyo rafaad ma inaan kusii jirnaan rabnaa mise inaan xorowdaan oo reer degan oo ubadkiisa arkay inaan noqonnaan rabnaa hadda tan lagu dhex jiro inaan iskaga baxno soo maaha oo nin walba intuu reer yeesho ma wadkii dhala rabtaa inaad noqotid mise walaalkii dhala rabtaa inaad noqotid markaa shahaadada qaadatid shahaadada markaa qaadatid hadhowto cunigaaga ma waxaa lagu dhihi doonaa ma walaalaa tihiin mise waxaa lagu dhihi doonaa wiilkana waa u tahay kee rabtaa inaad noqotid waxaan kusoo gebagabayn lahaa mar walba waxbarashada iyo guurku isma khilaafayaan dadka bulshada ah fikraddan faaftay ee cabsida ah waxaan rajaynayaa tusaale nool baa haysataan idil way ku guulaysatay guurkeeda najmina way ku guulaysatay guurkeeda gabdhihii hadda arkaysayna way isu soo dhiibeen oo dooda annaga ee soo galay dhinaca annaga waxa idiin haray isla adkayno aniga baan ugu horreeye waxaa waaye dhaga adeegii waxay noqonaysaa adkaysi marka aan wada dhaqaaqna dhammaanteena waa maasan tahay ilaa xilligan meel ay isku dhiibeen ma ayno fikradoodii ku adag yihiin ayaday difaacdeen mar kale waad mahadsan tihiin hal daqiiqo oo wax ka yar ayaan siinayaa waxaan rabaa kadibna aan kusoo dhaweeyo xubin ka mid a mas-uuliyiinta guryasamo kadibna aan marti sharafta siiyo muscab waxaan rabaa inaan ku siiyo hal daqiiqo ka yar dardaaranka oo kuugu dambeeya ee aad mawduucan ka leedahay ee aad jeedinaysa muxuu yahay horta dardaarankaygu wuxuu noqonayaa horta waxaan mahad celinayaa xarunta guryasamo oo program soo abaabushay oo si iskeeda ayadu isu xilqaamtay aad baan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha waa mahad celinayaa daawadayaasha iyo inta masraxa fadhidaba dardaarankaygu wuxuu noqonayaa ciddii awoodda inay isku wado guurka iyo waxbarashada taasaa horta u khayr badan laakiin ciddaan ka bixi karin mas-uuliyadda oo hadhoweyta ku fashilmaysa ee laga yaabo inay guurkii iyo waxbarashadii intay lugaha isla galaan hadhoweyta laga yaabo waxbarashadiina inuu ka haro noloshiina aanu heer fiican ka gaarin isagana waxaa u khayr badan inuu waxbarashadiisa ka mira dhaliyo